walaalayaal maanta waxaan la joogaa dadka ganacsada iyo waxaan la kulmay dadka security agencies oo xil saaran xagga amniga magaalada Wajeer waxaan ka danqaday dhibaatooyinka soo food saartay ka bilaabatay taariikhda 23 bishan ka bilaabatay magaalada Wajeer oo lagu xadgudbay dad ganacsiyaal leh oo dukaamahoodii iyo meelihii ay ka ganacsanayeen looga galay raashinkii iyo wixii ka ganacsanay dhamaala laga qaaday oo la gubay oo dawladda Kenya dad ka tirsan oo matalaha dawladda Kenya oo xambaarsan darajada Kenya inay ku xadgudbeen ayaan aaminsanahay inay ka dambeyntiideed ayaan ka daqaday waxaan ku talagalay in aan imaada dadka ay ka hay talaabo xoog leh oo waafaqsan sharciga in laga qaado ayaan qeybayna marka tiideedna waxaan ogolaanay cadaadiska lagu hayo dadweynaha Wajeer in aan ka xanuunsanayna aan raali ka ahayn aan la qabno wax Allah wixii talaabo sharciga waafaqsan in laga qaado aan aaminsan taasna waxa kale ugu baaqaya in ay xiriir la yeeshaan dawladda Kenya xuduudkan anaka aad baan dhibaato ugu qabnaa ganacsi fudud oo raashin oo fudud oo xagga beecba ka fudud Kenyaanka kale ama meelaha kale ayaa ka yimid sokor baa ka yimaada subag baa ka yimaada waxa ka yimaada caano baa ka yimaada baastada ayaa ka yimaada hatta maryaha naftigooda oo la xirina ayaa ka yimaada dad aad u fudud markaan xuduudkan xiran oo aan ku xiranahay noloshayna ayaan ku xiranahay aad baa inoo dhibaysa marka waxaan weydiinayaa Uhuru Kenyatta inuu xuduud ku furo asaga naftigiisa iyo dawladdiisa waxa ugu maqan canshuur badan baa ugu maqan canshuur si jid leh loo qaado haday jir leed iyada naftigeeda waxaan ganacsigan dawladda naftigeeda anfaceed dadweynaha waa anfacaysa dawladdu waa anface markaan si wanaagsan oo sharci waafaqsan in lagu shaqeeyo ay noqon leed kan dib kale oo ziyaado ay booliska iyo dadkii sharciga inay daafacaan dadweynaha noloshoodii iyo dhaqankoodii inay daafacaan laga rabay ayaa ku kacay in dadweynaha ay hantidaan wixii ka ganacsanayeen la gubo oo sharci gudub lagu gubo marka waxaan leenahay dawladda inay dadkaasito sharci iyo talaabo sharciga waafaqsan laga qaado ninkii ganacsiga oo alaabtooda lagu loo soo celiyo maaldab dawladda ay ku subisa hadda way ogolaadeen runtii dadkan maanta aan shirka aan la qaadanay in ay talaabo xoog leh ay ka qaadaan dadkii sharciyada gubay inay talaabo ka qaadaan way ku taliyeen marka waana ka sugeynaa waana ku talagalnaa in sharci waafaqsan laga qaado oo wixii ka dambeeyay bari isniinta wixii ka dambeeyay in talaabadaas la qaado ayaan kula talinay waana dabagalnaa insha Allah inay gasho dadweynahana waxaan leeyahay magaalada naftinkeedii amnigeeda waa xumaaday waxaa jira muqaadaraad badan oo dhalinyarada saameeyay ayaa iska jira muqaadaraadkaasna waxay ka yimaadeen magaalooyinka iyo wadanka jiiraanka ay ka yimaadeen ama Kenyaanka kale ay ka yimaadeen waxaan leenahay halla ayaka naftigooda sharcigaas ka taliyeen guriyihii lagu ganacsanaa ama daawada lagu iibinaa ayaka iska leh guriyihii ay nimankii joogaan oo dhalinyarada naftigeeda ay wax ku subeen ayaka iska leh wayna arkayeen meesha lagu ganacsanaa iyo dhalinyarada tumin ayaka ka mid marka waxaan leeyahay ayaka naftigooda in ay la shaqeeyaan dadweynaha ay security ay la shaqeeyaan sifa aan ugu bixino muqaadaraad oo hadda dadkeena iyo dhalinyarada saameeyay inaan ka bixino ayaan kula talina markaan saas waana ka raalahanaysiin haddeen ka daahnay dadka mas'uuliyiinta oo qaybaysan inay garab in noqdaan tiideedna waa naga raalahanaysiin dad badan oo mas'uuliyiin ah oo county-gaanaytu ku sugan naftigoodii warbixin bay ka dhiibeen lama qabaan dawladda iyo wixii dib ay geystaan lama qabo aad baa laga daqanaa markaan saas inaad ogaatiin ayaan doonaynaa insha Allah أنا فاطمة محمد مرة شلي واتان علعلات كل فنيي واد ولا فيرستين ما أنت رشيد قاسم آمن أيام بربر تاجنهي علعلات دي واتان ما أنت وأنا الله هدلي غير وجير هدان نهي مد شرف بانكو قادناي وحانو شرفكو قادناي xoolaha nagi tagay anagoon dagaalamin anagoon waxba qabanin baan madaxdeena sugnay waa lagu shukriyay taana Ilaahay baa loogu mahadnaqayaa maanta nabad baa dhacday ma koosadoodina dadkii waa loo cadeeyay waa la fariistay waa dhannahay marka waxaad ogaataan reer Wajeer hadaan nahay meeshii nabad baa ka dhacday waxeenina waa la helayaa inaan nabadaas ay iyo sharaftii aan markii hore qaadanay aan ku joogno oon la bedelin
aan la bedelin hadalka aan la bedelin nabad shalayna waan culculaadinayay waan ooynayay maantana madaxdaydii baa horta i barbar taagan ood arkaysaan waxaad yeelaysaan reer Wajeer haddaan nahay dukaamadii ha la furo meel walba xirnayd ha la furo fikirka ha la iska daayo sidaad u shaqaysan jirteen taladii rag iyo rabbi bay gacantooda ku jirtaa waa inaad ka shaqaysataan dhulkiina sida aad hadda isugu duubantihiina reer Wajeer haddaynu nahay inaan isugu duubnaano dambi kalena aanano dambi ma aanu galin dambina aan iska dhowrno sidaasaan idinku duceynaynaa waa Maxamed Cabdisalaan chairman business community Wajeer meesha waxaan iskugu imaanay maanta Madaxweyne Riis Qaasin ayaa noo imaaday 3 bilood la soo dhaafay magaalada dib ka jiray shaqada baa naga xirneed dhibaatooyin badan baa jiray qayli badan jirtay Madaxweyne Rasiid khayr alaasiya Wajeer East MB waa noo imaaday nimanka security-ga iyo anagii asaga waan fariisanay heshiis ayaan gaarnay markii heshiiskii aan gaarnay wax badan baa laga hadlay laakiin dadweynaha waxaan u sheegayaa ganacsatada Wajeer inay hadda wax dhibaato ay jirin arinta aan soo gabagabeynay aan isfaham fiican la gaaray raggii ka xamaalanay magaalada oo muruq maalatada hayna waxaan u sheegayaa inaan nimanka security-ga ahay oo dawladda aan heshiis la gaarnay raggii muruq maalatada ahay oo stooraha alaabta ka qaaday oo dukaamada keenay waxay si nadiif waa inay u shaqeystaan waa inay murugta iska dhaafaan cabsi way dhamaatay cabsi ma jirta cabsi damba ma jirta askari aad ka cabsanay magaalada Wajeer dhexdeeda ma jirta saas ayaan ku heshiinay madaxda security-ga iyo annaga iyo MB-ga sidaas ayaan ku heshiinay marka nin walba shaqadiisa ha furto fikir la'aan ha shaqeysta laakiin cadaadiska waa dhamaaday saas ayaan u sheegnaa nabadgelyada ha la ilaaliyo magaaladan annaga iska leh Wajeer annaga iska leh Ilaahay baa noo nasiibay waxaan u sheegayaa dadka ganacsatada ah nabadgelyada gacantooda ay ku jirtaa inay magaaladooda ilaaliyaan inay nabadgelyada ku dadaalaan inay wax dhibaato ah oo dhan ay ka hor imaadaan taas ayaan ayagana ku waaninaynaa marka intaas ayaan maanta gabagabo ku gaarnay dadweynaha marka waa inay ogaadaan MB-gana waa u mahadcelinaynaa ilaa sidoo noogu soo gurmaday degdegta ah oo waqtigii annaga aan ka cabaadnay oo noo soo boqol shaqadiisa far badan oo soo cidleeyay marka ninkaas waa in loo mahadceliya khayr Allah siiya ilaahayna wax walba ha la qabta